waxaan doonayaa inaan kaga hadlo caqabadaha dhalinyarada haysta dhalinyarada ka haysta gaar ahaan dhalinyarada gobolka Saaxil caqabadahaasi oo noqonaya kuwa ka haysta dhinaca shaqadu sidaynu ognahay waxa weeyaan looma soo bandhigo deesi maanta common mana aha mid ay deeyo helaan si fiira shaqooyin ka soo baxa wasaaradaha xarumaha wasaaradaha lama soo bandhigo mana inaan armeel lagu soo bandhigo taasina waa caqabad haysata dhalinyarada aqoon-yahankaahi ma helaan fursadii ay ku tartami lahaayeen ay ku soo bandhigi lahayn awoodooda aqooneed iyadoo marka hore aynu ognahay inay dhibaato u gaari jirto dhinaca environmentalka oo climatical factor ay haysato oo ardaygii ay ku adag tahay marka horeba inuu si fiican wax u barto oo waxbarashadii ay caqabad ka haysato maadaama ay tahay magaalo kulul leerkina uu noqday business oo aanay u suurtagelin ardayga inuu helo AC oo leer ku filan aanu helin leerkina business uu noqday caqabadaha soo isbiirsaday waxa kale oo iyaduna soo raacaysa inaanay jirin habsami u socod dhinaca ciyaaraha oo dhalinyartu aanay helin ciyaarihii oo aanu soconayn si dhammaystiran ama isku xidhan oo serious waqtiyada qaarkoodna ay helayaan waqtiyada qaarkoodna ay waayayaanba caqabadahaasi ayaa dhalinyarada hareegay oo haysta gaar ahaan dhalinyarta gobolka Saaxil berbera ahaan dhalinyarta reer berbera iyadoo ay saasi tahay dhalinyarta waxaan ku boorinayaa ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iideystaan codkooga maanta ay u codeeyeen isbedelka oo ay ku dhiiradaan inay codkooga ku bedelaan xukuumadda waqti xaadirkan gabaabsiga ku jirta ee gobolkeedii dhacay oo ay uga faa'iideystaan inay u codeeyeen isbedel doonka iyaga ayaa isbedel doonka ayaa ah ka wax ka bedelaya dhalinyarta fursadahaasi ka xiran oo dhan u fudaydinaya ama siinaya waxaan kaloo doonayaa fursaddan inuu uga faa'iideysto maalinta 27 bisha ee ku beegan axadda inay bulshadu u soo baxaan si weyn qof kastaba uu soo qaato calankiisa iyo dresskiisa oo uu yimaado goobta loo asteeyay ee khayriyada halkaasi aanu si fiican ugu muujino xuduudeena taageero ee aanu hayno isbedel doonka awooddeena aan muujino aan soo wada baxno guud ahaan dhalinyarta gobolka Saaxil si guud dhalinyarta gobolka Saaxil waxaan leeyahay muujiya awoodiina cadeeya mowqifkiina oo soo istaaga stage-ka yimaada khayriyada maalinta 27 bisha ee axadda insha Allah hadii la hayraho